Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xulka qaranka England oo guuldaro kala kulmay xulka qaranka Talyaaniga, Brazil oo cashar u dhigay xulka qaranka Ghana, Mohamed Salah oo xulkiisa ku hogaamiyay guul weyn. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesina share gareysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Xulka qaranka Talyaaniga ayaa guul cariiri ka gaaray dhigiisa England kulan ka dhacay garoonka San Siro ee magaalada Milano oo ka tirsanaa UEFA Nations League, waxaana dalalka kala saaray gool u dhaliyay xidiga Raspadori. Ciyaarta oo aad loo xiiseynaya natiijadeeda ayaa Ingiriiska doonayeen inay kaga aarsadaan Talyaaniga oo finalkii Euro 2020 garoonka Wembley rigoryaal ka qaaday xulka qaranka Talyaaniga, waxaana taageerayaasha ayaa ku dabaala deegeena garoonka Wembley kulankan oo inta badan ay ciyaarta ku gacan sareeyeen ciyaartoyda xulka qaranka England ayaa waxaa qaybtii hore lagu dagaalamay khadka dhexe iyagoo weeraryahanada laga fogeeyay goolasha, hase yeeshee Harry Kane iyo Scamacca ayaa u muuqday kuwa helaya fursado xulalkooda ay goolal uga dhalin kareen. Harry Kane ayaa madax xoogan ku qabtay waxaana dhowr jeer badbaadin fiican sameeyay goolayaha xulka qaranka Talyaaniga ee Donnarumma ayaa laba fursadood oo dahabi ka badbaadiyay Harry Kane. Daqiiqadii 68aad ciyaarta ayaa Raspadori jabiyay derbiga difaaca England oo uu ka dhaliyay goolka guusha siiyay Talyaaniga, waxaana England loo diiwaangeliyay marxaladii ugu xumeyd tan ilaa June 2014. England ayaa ku jira kaalinta ugu hooseysa ee gruupka, waxaana si lama filaan hogaankiisa u qabtay gruupka xulka Hungary oo caawa hal gool kaga adkaaday xulka qaranka Germany oo weliba marti ugu ahaa garoonka Red Bull Arena. Jarmalka oo inta badan gacanta ku haya maamulka ciyaarta ayaa awoodi waayay in ay ka faa'iideystaan fursado badan oo heleen labadii qeybood ee ciyaarta, waxaana khasaaro socota noqday kulankaasi. Timo Werner oo afka hore weerarka kusoo bilowday iyagoo awoodi waayay in ay ka daba yimaadaan gool uu daqiiqadii 17aad u dhaliyay xidiga Adama. Gruupkan waxaa hogaaminaya xulka qaranka Hungary oo haysta 10 dhibcood, waxaana labaad soo galay xulka Talyaaniga oo 8 dhibcood aruursaday 5 ciyaarood ay ciyaareen, waxaana saddexaad ku jira xulka qaranka Germany oo haysta 6 dhibcood, halka Ingiriiska uu ku jiro kaalinta ugu hooseysa wuxuuna haystaa 2 dhibcood 5 ciyaarood uu ciyaaray tartankani. Xulka qaranka Argentina ayaa guul weyn wuxuu ka gaaray xulka qaranka Honduras. Goolasha ayaa guusha ku raacday xulka qaranka Argentina waxaa dhaliyay xidiga Lautaro Martinez iyo 2 gool u dhaliyay xidiga Lionel Messi iyo Lautaro Martinez ayaa kulankan waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican, inkastoo tababaraha xulka qaranka Argentina si aad u amaanay xidiga Lionel Messi, waxaana uu sheegay in Lionel Messi uu qayb weyn ka qaadan doono xidiga guulaha weyn uu gaarsiin karo xulka qarankaasi ee Argentina. Tababaraha ayaa dhanka kale waxa uu amaanay xidiga Lautaro Martinez, waxaana uu sheegay in uu soo hagaagayo qaab ciyaareedkiisa, wuxuuna ka mid noqon doonaa ayuu yiri xidigaha ugu fiican ee xulkiisa qaranka ee Argentina. Xulka qaranka Brazil ayaa cashar u dhigay xulka qaranka Ghana. Xulka qaranka Brazil ayaa magaalada Paris ku burburiyay Ghana oo ka mid ah dalalka qaaradda Afrika uga qayb galaya koobka adduunka. Xulka qaranka Brazil ayaa magaalada Paris ku garaacay Ghana oo ka mid ah xulalka qaaradda Afrika uga qayb galaya koobka adduunka oo ay kulan saaxiibtinimo ay ku wada ciyaareen dalka Faransiiska, waxaana 3-0 ku badiyay xulka qaranka Brazil. Weeraryahanka kooxda Tottenham Richarlison ayaa 2 gool oo daran u dhaliyay xulka qaranka Brazil. Bilowgii ciyaartana xidiga Marquinhos ayaa madax xoogan ku hogaamiyay xulkiisa qaranka, waxaana uu hogaanka u dhiibay xulkiisa qaranka ee Brazil. Daqiiqadii 9aad bilowga ciyaarta ayaa koorno uu soo qaaday xidka Rafinha, waxaa madax awood badan ku dhaliyay Marquinhos iyadoo la mooday in ay difaacyada Ghana ay awoodi waayeen in kubadaasi ay celiyaan. 2 gool waxaa ku daray xidiga Richarlison, waxaana uu soo bandhigay kulankii xalay qaab ciyaareed aad u fiican. Goolashan waxaa ka horeeyay dhowr darbadood oo xulka Brazil goolka la sigay, gaar ahaan Richarlison oo goolka hortiisa
ka helay fursad aad u fiican oo kasoo shaqeeyay xidiga Paqueta, laakiin waxa uu markii dambe uu ka faa'iideystay fursado uu helay. Ghana ay kubadeeda ay ka coddaasneyd qaybtii hore ciyaarta ayaa la imaan daafac iyo weerar hagaagsan, waxaana kubadda dhan walba ay ka haystay xulka qaranka Brazil. Ugu dambeyn Brazil ayaa ku adkaaday 3-0 ay ku garaaceen xulka qaranka Ghana. Xulka qaranka Masar ayaa guul weyn waxa uu ka gaaray xulka qaranka Niger, waxaana 3 gool ay uga badiyeen xulkaasi. 3 gool 2 ka mid ah waxaa dhaliyay xidiga Masar ee Mohamed Salah, kaasi oo bandhig aad u fiican uu sameeyay kulankii xalay ay xulkiisa qaranka ay la ciyaareen xulka qaranka Niger. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe, share, gareysii barnaamijkan asxaabo badan u gaaro. mahadsanidina.